haddii aad ku nooshahay Jigjiga, haddii aad ku nooshahay Boorama, haddii aad ku nooshahay Djibouti, haddaad ku nooshahay Hargeysa, haddaad ku nooshahay Garowe, Boosaaso, Muqdisho iyo meelaha kale aan sheegin, dhammaantiin Allahumma subhanahu wa ta'ala fursad ganacsi oo wadankeena hooyo ka banaan haddaad bilowdid Allahumma subhanahu wax fiican ka sameyn karaysid. Saaxiibayaal maanta muuqaalkeena insha Allah hadii la yiraahdo waxaynu ku dul istaagaynaa fursad ganacsi oo wadankeena ka banaan. Haddii aad wadankeena joogtid, wadankeena wuu dihan yahay Allahumma subhanahu ama deegaanadeena way dihan yihiin. inta badan fursadaha ganacsiga iyo waxyaabaha ka jira Allahumma subhanahu adduunka kale lama geyn haday noqoto product iyo haday noqoto service iyo haday noqoto waxyaabo kala duwan. Marka maanta waxaynu muuqaalkan insha Allah hadii la nagula dul istaagi doonaa business model aad ka sameyn karaysid 1000 ilaa iyo 1500 bil kasta adigoo wadankeena joogo. Maybe inay ka badataa macquula inay ka yaraataa macquula, laakiinse waa business model shaqeeya baahi weyn wadankeena uga jirto. Saaxiibayaal wadankii sanadkii hal mar baan tagaa, marka waan eegaa markaas safarkaan safrayo inta badan wuxuu ii saamaxaa maxaa fursado banaan oo adduunka kale ka jira, maxaana fursado wadankeena ka jirin. marka fursadan ganacsiga insha Allah dilaa maanta la wadaagaya. Fursadan waxa la yiraahdaa walaalayaal camping business. waa business model dadku intooda badan magaalooyinka ku daaleen, magaalooyinka waaweyn ee malaayiinta ku nool yihiin sida xagan China hadda ku sugana dad badan baa magaalooyinka ku nool. maalin dhaweydaan baxay vacation baan tagay, meel waxaan tagay Yangshu la yiraahdo. magaalada yar waxa ku yaala gebigayga waxay diyaarsantahay waa dhir Allahumma ta'ala dhir bay ka kooban tahay. Camping business ya badan baa ka furan, meel dadku ay tagayaan ku caawin karayaan ayaa jirta. sidoo kale Allahumma ta'ala magaalo kasto weyn oo westernka ku taala marka xilli baa jirta dadku ay ka baxaan magaalooyinka waaweyn oo rabaan inay magaalada dibadeeda waqti ku soo qaataan. inaga dadkeena way sameeyaan, wadankeena waa la sameeyaa, laakiin way yar yihiin meelaha u diyaariya service ama meel ay joogi karaan dadku. imiga wadankii oo kale tawaad baxaysa Allahumma ta'ala dibadeeda u baxaysaa, meel aad tagi karaysid ma jirto, meel aad ku lugeyn karaysid ma jirto, meel aad camping habeen intaad ka baxdid Allahumma ta'ala aad oran kartid xagaas baan maalinkaas soo seexanaya ama habeenkaas soo seexanaya ma jirto, cid service-kii ku qabanaysa ma jirto. marka fursada ganacsi cid bilowday Allahumma ta'ala deegaanadeena ka bilowda meelaha laga sameyn karayo barbarow kala kamida togo jaalo kala kamida Jigjiga duleedkayga Karamadha meelaha soo kala kamida waxa kamida Boorama seeraha Boorama kamida Allahumma ta'ala ama Sanaago kala kamida waxa kamida Puntland Allahumma ta'ala Murcaayo magaalooyinka Allahumma ta'ala quruxda badan leh, xeebta quruxda badan leh Murcaaya kamida Boosaaso kamida meelaha dadku ka soo bixi karayaan oo markay soo dalxiisaan ay seexan karayaan, cuntadoodii ay ka heli karayaan Allahumma ta'ala chiefkooga ay ka heli karayaan. marka camping businessku waa instead guri dhan aad dhisi lahayd, marka waa taando la dhex dhigayo sariir Allahumma ta'ala ama sariir bal dhex dhigi kartaa ama furaashiyo waxa jirta naqas la geliyo oo furaashiyo naqas la geliyo waxa jirta Allahumma ta'ala qiimo jaban lagu helo oo Allahumma ta'ala xagan China iyo laga hela jirta qalabkan. I think Allahumma ta'ala qofkii doonaya insha Allah hadii la hayraado in loo soo iibiyo ama Allahumma ta'ala loo soo sameeyo insha Allah hadii la hayraado teamka qof baan ku xiri doonaa insha Allah hadii la hayraado linkiga hoose ayaan Allahumma ta'ala dhigi doonaa. marka waa teendadaas qofka habeenkii buu dhex seexanaya, wuxuu ka helaya Allahumma ta'ala meeshuu seexan lahaa, wuxuu helaya lighting iyo Allahumma ta'ala bustihii waxyaabuhu yaalay. waliba wadankiina waxyaabuhu aad ugu fiican yahay cimiladiisu inta badan isma badbadasho oo cimilo fiican oo sustainable ayaynu leenahay. marka cimiladaas fiican investmentkaas waxa macquula haddii ugu badato 5,000 ilaa 10,000 dollar inuu kaaga baxdo inaad ku invest karaysid 5 qof ilaa iyo 10 qofna Allahumma ta'ala ku bilaabi karaysaa. qasab maaha inaad Allahumma ta'ala wax weyn aad hal mar kooda samaysid. marka 5 qof oo kale u diyaarin kartaa, midoo kale waxaad ka dhigi kartaa Allahumma ta'ala meel ay dadku ku caweeyaan. inta badan dadku markay ka soo baxaan magaalada meel ay ku caweyn karayaan, maybe qaraami baad ugu dari karaysaa Allahumma ta'ala maybe meel ay dadku caanaha ka cabi karayaan, caana ka cabi karayaan, maybe coffee baad ugu dari kartaa. dadka saaxiibada magaalada dhex jooga inta badan magaalada waa lagu daalaa, marka qofkii wuxuu doonayaa meel uu ku soo nafiso oo ka yarbax magaaladii iyo buuqeedii iyo waxyaabaheegii. dadkeena hadda Allahumma ta'ala waxaad moodaysaa in hadda soo ladnaanayaan oo soo fahmayaan businessyada iyo waxyaabaha jira ay rabaan Allahumma ta'ala safar siyaaxada ama qurba joogta ha noqoto. Allahumma ta'ala dadka qurbaha jooga sideedoo kale markaan hadda wadankii tago waxaan rabaa Allahumma ta'ala meel aan ku bixi karayo, meel lagu qaadan karayo, waqti lagu qaadan karayo. marka camping businesskaas ayaad sameyn karaysaa Allahumma ta'ala aad u sameyn karaysaa. marka ugu horeysa maxaa u baahan tahay walaal location kaad ka sameyn lahayd. meelahan soo carabaabnay deegaanadeena ayaad ka sameyn karaysaa, ama Karamadha agteeda ha noqoto ama seeraha Boorama ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto
meel ka baxsan Arabsiyo iyo Allah musta'an meelaha u dhow ha noqoto ama Muqdisho meelaha ka baxsan balcado kale ha noqoto waxaan arkay maalmo dhaweyd saxaaro laga dhaxelay Muqdisho agteeda meel saxaaro kale meelahaas oo kale waxaan tagnay 2021kii aniga saaxiibkay Bashaar Dheere ayaa waxaan u safarnay wadanka la yiraahdo Jordan Amman ayaan tagnay marka Wadi Rum ba ku yaala Wadi Rum ayaa ku yaala Wadi Rum dhexdeeda waxay ka dhex sameeyeen camping business musta'an marka meel la furay in kastoo waxooga investment ay ka duwan tahay oo investment fiican hadii aad galaysid lacag fiican ay kaaga soo bixi karayso Allah musta'an Wadi Rum waxa ku dhex yaala marka the camping si aan caadi ahayn loo sameeyay Allah musta'an sawirkiisan fiidiyoodiisan Allah musta'an xagan ni soo dhigi doona marka xaga xamar agteeda saxara agteeda ay ka waxaan karaysan I think Hargeysa meel u dhow ama inay iyada laftigeedu iyada saxaara leedahay saxaraas bad ka dhex sameyn karaysan inay dadku yimaadaan hilib geeli loo qalo arigi loo qalo ay dadku waqti fiican ku qaataan oo safar siyaaxa fiican Allah musta'an noqoto marka adigina business fiican oo lacag fiican ka sameyn karaysid imika wadankeeni marka dadka la sheekeysatid intooda badan waxay ku fikirayaan ama inuu carwo furo ama inay cosmetic iibiyaan ama electronic inay iibiyaan wixii waxaad moodaysaa businesskii inuu noqdo business isku wadaagay marka boqolaal iyo kumanaan kun oo fursadood oo business baa jirta oo Allah musta'an ka jirta hadda Nairobi ayaan Nairobi markaan joogo waxa jirta inama waxay sameeyeen meel magaalada ka baxsan oo beer ku taala beertaas baa Allah musta'an waqti fiican aan ku soo qaadanaa xagan Shaarad baan ka sameeynaya saaxiibkay Hanad beer aad u qurux badan ay ka sameeyeen marka wuxuu igu yiri Hanad waxyaabahan ka igu yiri waxa kamid ahaa waxyaabaha ugu fiican ee la iska koobiyay ama businessada ugu fiican ee la iska koobiyay waxa kamid ah businesska beeraha iyo hospitality wixii la xiriiray marka waxaan rajaynayaa Allah musta'an inaad meel saas oo kale Allah musta'an sameeysan maxaad u baahan tahay tab businesskan si aad u bilowdid waxa u baahan tahay 5 ilaa 10 qof taandhada dhex seexan lahaayeen taandhadu aad bay u yar tahay qiimahooduna Allah musta'an aad uma sii badna fresh inaad u dhex dhigtid ama freshada kuwa naqaska ha noqdaan ama kuwa kale ha noqdaan inaad lighting ugu xidhid Allah musta'an lighting aad u sameeysid inaad u dhigtid sijaayad meel ay ku tukadaan inaad u dhigtid biyo waxay biyo ku cabaan inaad u dhigtid Allah musta'an musqul yar dhinac uga sameeysid Allah musta'an musqul dhinac uga sameeysid inaad u sameeysid Allah musta'an haabo ama waxay shidan karayaan Allah musta'an meel ay haabo ku shidan karayaan ama meel ay ku sameeysan karayaan Allah musta'an inaad u sameeysid marka ugu badnaan waxa kaaga bixi karaya 5,000 ilaa 10,000 dollar ayaa kaaga bixi karaya marka cala qof waxaad ka qaadi kartaa cala qof waxaad maalinkii ka qaadi kartaa 25 dollar ilaa 50 dollar inta u dhaxaysa habeenka uu seexanaya Allah musta'an deeto 25 lagu dhuftay 10 waxay noqonaysaa 250 ay noqonaysaa 250 bishii lagu dhuftay 30 waxay noqonaysaa 2500 iyo 2 adu bishii haday ugu yar tahay 2500 ilaa 1500 dollar wad ka sameynaysaa markaad alaabtii soo iibsatid Allah musta'an alaabteed keentid waxaad u baahan tahay Allah musta'an design garaysid oo meeshii design-keedu sameeysid imika murcaan oo kale Saciid Fariye xagan aad baan uga salaamayaa Saciid baa wuxuu ka soo sameeyay muuqaal aad u qurux badan oo Ramadaankii aan daawaday isaga iyo Xaaji Dirar aad baan xagan uga salaamayaa aad baan u jeclahay muuqaaladiisa Allah musta'an uu ka soo diyaariyay deegaanadeena Soomaaliyeed waa meel qurux badan oo laga sameyn karayo Allah musta'an oo la dhigi karayo oo ay dadkeenu Allah musta'an aad uga faa'iidi karayaan sidoo kale waxaad u sameyn karaysaa cunto kale ama caana geel baad u dhigi kartaa saddexda waqti ayaad sameyn karaysaa taas iyada laftigeegu waxay ku noqon karaysaa offer kale oo gaar ah haddaad doonaysid cuntooyin unique ayaad uga sameyn karaysaa oo Allah musta'an uga sameyn kartaa intaas markaad dhamaystirtid meeshii dhamaystirtid waxaad u baahanaysaa inaad marketing samaysid tank social media 10 dollar 20 dollar baa kaaga bixi kartaa inaad daily kuran garaysid inaad dadku yimaadaan waxaad casuumi kartaa influencers oo u diri kartaa kulan kartaa Allah musta'an kale nagala soo qayb kala influencerskaas dadkooga la wadaagayaan qof 100 kun ku xiran yihiin tiktokers baad casuumi kartaa tiktokers ka baa ku iman karaya haysiis meesha kuugu sameyn karaya marka meeshiina waxay noqonaysaa waxay dadkii bartaan oo trend noqota oo Allah musta'an dadku ay gaaraan dadkii aad bay ugu baahan yihiin businessyada noocaas oo kala in loo sameeyo meel magaalada ka baxsan Allah musta'an loo sameeyo haddaad ganacsado weyn tahay oo Allah musta'an ganacsado weyn tahayna investment fiican bad gelin kartaa oo u dhaxaysa 50,000 ilaa 100,000 deeto kuwan Jordan ku soo aragnay oo kale ayaad sameyn kartaa instead Allah musta'an guri maanta guriga wadankii ka dhistid waxa macquul 50,000 60,000 70,000 inay kaaga baxdo
lacagta uu bishii kuu soo celinaya waa $500 wax badan ma marka waxaan u baahnay creativity-geena inaynu kala saarno oo aynu waxyaabo kala duwan Allah musta'aan aan isku daytayno inahaas maslaha muuqaalku way ugu muhiimsanayeen haddii aad doonaysid in alaabtaas oo dhammaystiran Allah musta'aan lagu soo iibiyo oo China lagaga soo iibiyo iyadoo quality-geedu aad u fiican tahay insha Allah hadii la yiraahdo linkiga ku dhufo fulfillment center ban insha Allah hadii la yiraahdo diyaarinay iyo team la shaqeynaya Allah musta'aan dadka wadankeena jooga ee doonaya in Allah musta'aan waxay doonayaan loo soo adeego inta muuqaalka xig kulmi doono dhammaanteen waxaan u baahanahay qofna dhiirigeliya qofna challenge gareeya qof nagu taageero waxyaabaha aynu rabno haddana dad qof ka helin qof u noqo haddana dad qof ka helin adoo gaar ahaan naftaada u noqo see you soon